السلام الله عليكم أصحابتي ذا وانا دي السلام ياو maantay waa ka hari weydaye way ku haysataa qaladaad ayaan maanta saxaynaa si wada jir ah anagoo wada socono haddii aan ugu cusub tahay subscribe taada waa dhiirigelin like taada waa codsi commentigana fikirkaaga nagula wadaagsaa kusoo dhawaada barnaamijkii faahfaahsan horta asxaabteyda qaaliga ah soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan analyzing ku sameynaynaa maantay barnaamij yar oo nin dhalinyaro Soomaaliyeed uu soo dhigay badanaana uu ka hadlo ninkan aad arkaysaan oo maanta barnaamijkiisa dul istaagi doono badanaana dumarka Soomaaliyeed xogaha qalloociya ama farta ku fiiqo si qaldan farta ugu fiiqa qof horta ka cabaad badan ma laha runta idin sheegaya ma maqli jirteen hasha geela cunta ee cabaada maqli jirteen waa ninkan sababta idin sheegaya hadda ka hor baan barnaamij uu xaaska dayaxdan loo soo qof marwe ah oo ku ataagay baan ka soo hadlay mana caayin mana aflagaadeyn ee fikir uu gudbistay oo aan qaldanaa oo aan qalad ka dhex arkay baan analyze gareeyay oo dul istaagay intii xasuusta muuqaalkii aan dayaxdan loo shaxaaskiisa ninka kaga fujinay cabaad iyo waxaan ku eri dacwo buu xilaaday YouTube-ka oo kuwan fikrad xaliya YouTube-kiisa ku qoran saasu cabaad waxaan ku eri waxaan ku eri Gmail-ada dacwada war adiga hadaadan adkeysan karin oo aadan hadal u dul qaadan karin inaadeen maxaa dumarka Soomaaliyeed oo qowmiyad ah oo hooyo leh oo aawa taqaana habar yar leh oo eedo leh oo walaal leh oo marwe leh oo mataqaana wadaad leh oo see inta isugu wada qaaday wada taagreys adigaagaasna cid ka jilicsan hadalkan yarka ay hadda halkan aan ka soo dhahayo nabar bay kugu noqonaysa dacwad buuna ka soo gudbin doona waana ballan markuu dacwadaha labaad uu ka soo gudbiyay soo dhacaan halkan ay idin soo dhigi doona wallahi inuu sunu adkeysan karin ninka dumarka si loola tirsado ee loola xifaaltumo yaqaan ragni soo dhex gali kara ma waaya waxaan maanta dul istaagayaa marka buuqaalo khaldan oo uu fikir khaldan oo bulshada inuu ku shuban rabo oo ragga iyo dumarka isaga horkeena uu rabo baan rabaa bal maantay hadalka uu dhaw baan ka jawaabaya hadalka uu dhaw baan analyze gareynaya caay maayo aflagaadeey maayo ku xad gudbi maayo bal marka muuqaalkiisa hal mar aan isla daawano ilana socda muuqaalka markii uu kelmad dhaho oraahda jawaabta baan siinaya وانا دي السلام ياو shan calaamadood oo aad ku garan kartid naagtu inay ku jeceshahay iyo in kale shan calaamadood waa sugaysaa Soomaa brada jacayl ma jiro waxa la dhaho jacaylku inuu jiro iyo inuu uusan jirin waa qofka hadba noloshiisa iyo beeskiisa iyo fikirkiisa soo arko kuma cabureenno asagoo haduu aaminsan yahay jacaylku inuu san jirin kuma cabureenno xadgudub ma sameeyno okay by the way ku soo tanahaaga raaco tiisaba daryeela tukala ku dara brada time kaas ma hayso erigaas ii qabtaya erigaas meel igu qora fiidiyoga meel dhexe baan uga baahanahay erigaas tanahaaga raaco erigaas meel ii dhiga waaya marar badan waxaad aragtay nin dhalinyaro oo naag uu raadinayay ama naag uu rabay ay ku dhaxday kuma rabo ama ay ku dhaxday xiriir baan ku jira ama ay wax uu sheegtay marmarsiya ah oo macnaheedu yahay kuma rabo adiga oo ku dhaxaya waan ka keensanaya ana jacayl ku abuuraya de walaal qaali eeg magaalada Rome ee aragtay hal maal lagu ma dhisin maanta hadaan damco inaan guri dhiso caadi oo gurigan aan ku dhex jiro kala ah even hatta hal maalin kuma dhisi karo war studio yarkii aan kaaga soo hadlayo baan hal maalin lagu sameyn karin YouTube kan aan kala hadlayo hal maalin intaan iska soo fariiso dadku iguma soo yaacina waan kasbado waan ka shaqeeyay adigu gabadhu ma waxaad u aragtaa shay tukaan yaal oo wandhay la soo iibsanayo sida wax walba process iyo juhdi iyo dadaal inaad ku bixiso oo u baahan tahay buu qofkan bilaadanka inaad juhdi iyo dadaal aad ku bixisaa u baahan way ku qiimeynaysaa qof dadaal wax ka daacad yihiin haday ku aragto way ku soo dhaweynaysaa haday saqajaanaynin waxyaalo taqaana gaabsi iyo wax dara raadinaya ku aragtana adeero waxay ku leedahay fantashiru fil ard marka dumarku ma aha shay suuq yaal hal mar wandhay la soo iibsan karo waa in loo sabro processing loo maro sida nolosha inteeda kala processing ay u tahay anigu hadaan ka daba wareego way jeclaanaysaa iyada ay rabaysa brada in lagu isticmaalo ma sheegin laakiin cid ku rabta ma jirto kuma raba macnaheedu waa kuma rabo haday ku rabto iyada waqti ku gelin lahayd iyadaana ku soo
oo adi waa iyadu kuu soo raadinaysaa ileen eeg adiga waxaa tiri ragga Soomaaliyeedow dumarku idinma rabaan ayadu marka xagee ka jilicsan tahay aduu markaad isgiijiso oo aadan raadsan boqolaal rag oo kale dunida ku noole adiga marka iyada waxa soo jiidayo ku waajib yeelaya in adigu soo raadiso mastiga kaga dhigaya maxay tahay bal eeg aqliyada daciifka way wuxuu taagay rag oo dumarka idinku raadsanina ee ayagu ay soo raasaan oo ayagu ma taqaana sababta hadda naagta aad shukaansato ama naagta aad la socoto ay taleefankaaga qaban weydo markasto aad wacdo ku celceliso sababta fariimahaaga uga jawaabi weydo sababta markay rabtana ay ku soo wacdo marka kalena ay ka aamusto way ogtahay inaad baahan tahay way ogtahay inaad maanta dhan maxaa la dhihi jiray haynin wax ka nina kan xataa markaad analysis sameynayso waa isku balance gareeyaa waxa hubaal ah nolosha naftu naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa inay tahay hore xataa looga heesay adigu markaa tan aad ka daba ordayso aad wacayso aad ku rafaadayso adna gabar kala ku soo wacaysa laakiin se gabadhaani kaaga dhiganta gabadhaasna wiil kala soo wacay ka qaban laado adiga kugu soo maqan tahay adduunka saas la isugu maqan yahay gabadhu markaan aniga wacayo igu dhageysanayso anigana kuwa interest gareynaya jira laakiin nafteedii baa naftan u muuqataa ka hoos bixin kaliya mar walba dadka wax raadinaya ama dadka la raadinayo waa inaad isku balance gareysaa oo si xigmadeysan aad dadka wax ugu sheegtaa waaye qaar marka telefoon u soo dhaco cabsida iyo khalkhalka iyo jahwareerka galaya waad yaabaysaa markuu telefoonka dhamaysto oo xagga la aaday oo soo laabto aad weydiisay ku soo wacay xaaska isoo waceysi waraada wallahi cabsida ninkaas gashay waagi dugsiga markaan quraanka gafo ee dugsiga leegu reebayo xataa asaas ma uga baqi jirin macalinka baraada okay naagta adigu waaye ninnimadana adaa haysta adaa nina arinta laba arrimood baa uga jawaabaya bal u fiirso horta marka koobaad waxaa tiri danahaaga raaco baad bilowga fiidiyowga tiri markaas hadda waxaa rabtaa ninka inuu telefoonka marwadiisii adoo garab fadhiyo oo kugula hadlo afaare internehiisa iyo secretkiisa gurigiisa u gaarka ah oo agtaada kula sheekaysto wax walba ka ogaatid adeerdanihiisu raacday uu ka akacay telefoonkiisu la baxay war xitaa dadka ajnabiga markuu xaaskooda ay soo wacaan iyo kula joogo waa labo inuu dhaho ayadu dhaw kugu soo celinaya wax yar isug meel baan ku jiraa ama inuu telefoon kala kaco adduunka dadka dunida iska doorteen guri bay wada degeen waxyaabo badan oo secret u dhaxeeya ma bulsho kaga dhaxal lahaa amaro habibi ay jawiga caaw maxay nudula warka waa faaro midda labaad aan ku sheego midda labaad baa waxay tahay adeero wuxuu u baqayaa waxay tahay waxaadan haysan buu haystaa saaka soo kacay adoo madaxweyne meesha taagayo canjeero qalalan iyo rooti qalalan oo guriga aad xalaq kaga seexataa soo cuntay adoo rafaasan oo shaati jacdada wadaad isaga u timid laas isaga saaka markuu soo kacay beer iyo waxaan ku iyo malo waxay nidaam baa loo shiilay dharkiisa dhaqan baa loo soo bixiyay waa loo soo barfuumay waa la soo diray caawa adigu markaa laabatid inaad bariis dabka saaratid baa ku sugaysaa laas isaga cunto diyaarsan buu u tagayaa servicekaas qofka uu ku haystaay respect iyo tixgelin buu ka mudan yahay sheekhow aan ka daba geeyay waa ka hari weeday waa ku haysataa ka hari weeday waa ku haysataa madax qaleele meesha taag nin soo barfuumaysta agta telefoon xaaskiisa inuu kula hadlo xaaraantii nabi maxamed xarimay ka ta haysta adaa nina brada xaniyaha isticmaal xaniyaha ka laalaadin kaliya adiga hadeer xaniyaa leedahay nin ragaa tahay xaniyuhiisan ka laalaadine waayo dumar sagaashanka uga faaloonaysaa marka haddaysan dumarka kaaga dheganayn bal eeg adeerow haddii aad dumar ka maarmayso ma aadan soo hadal qaadeen danahaaga kale guud baa raacan lahayd ninakan waxaan fahmi lahay qoftu inuu dumar oo idinkana waxa idinkaga yaabay xariifkan camal aad hayshaan waa ku baashaan xariifka ku soo baashaashan والله حريف كان جروبا انت وشرين اركان انه سو waxba ku dhex jirin ilaa waa qofkan waxba aysan ku dhex jirin tay arkeen waxa way aad u baashaaleen kisto yaro oo wax meel ku arursadana waa soo dhameeyay kadibna madaxay ka soo taabteen baxay dheen bax khayr Allah ku siiye marka waa kana saana ka daacada dumarka Soomaaliyeed sharaf bay naga mudan yihiin ixtiraam bay naga mudan yihiin ragga Soomaaliyeed hadda anaga nahayna dumarkeena mar walba waana sharfaan ninkaan oo kale waa la kaftamaa waa la isku leystaa sida dumarka caalamka oo kale laakiin oo kale waa gaf hooyooyin buu gafayaa qadiyad xun buu abuurayaa guurkiyo hadeer iyo furniinkiyo badnaa buu nina kan laba jibaaraya
dumar awal dumarka kala programyaan qaatiyaan ka taagneen ninkaan oo kale ragibu xataa maskaxdii confuse kaga furaya marka waxaan leenahay noocaan oo kale shartooda ilaahay ha naga xijaabo barnaamijkii aan ku dul istaagay qodobadii yareereed ee jawaabtu baahnaa ee ninkaan intaas aan kusoo gabagabeynaya haddii aan cusub tahay subscribe-taada waa dhiirigelin like-taada waa codsi comment-tigna fikirkaaga nagula wadaagsaa intaan kulmi doono barnaamij ka lamid ah waa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliya Shalmeen idin leh jaw